iyadoo xaaladda nolosha iyo cimilada xeryaha dhadhaabi tahay mid adag ayaa waxaa jirta dadyow ay u dheer yihiin bugta xanuun. Fadxi Mukhtaar waa hooyada dhashay Cabdulaahi Daahir Maxamed oo daahaan jira 1 sano iyo 5 bilood. Wuxuu la xanuunsan yahay sida aad arki karaysaan nabar ka soo baxay dhabarka kaasoo sababay in saqiirka madaxiisu weynaado. mana jirta wax tasiilaad daawooyin oo uu ka helay hay'adaha caafimaad ee ka howlgala gudaha xeryaha Dhadhaab sida ay ku warbixisay hooyadiis oo la hadashay warbaahinta RTN. waxayna hooyadan oo la qaracan mushkiladda xanuun ee hadhaysay wiilkan yar walaalaha Soomaaliyeed ka dalbanaysaa in la soo tabaruco sifa ay u hesho dhakhtar wax ka qaban kara xanuunka wiilkeedan yar. magacayga waa Fadxi Mukhtaar Maxamed waxaan joogaa xerooyinka qaxootiga Xagadheera halkan waxaan u imaaday dhibaato iyo cunug xanuunkiisa cunugan oo sanad iyo 5 bilood dhalan oo qaxootiga aan la soo aaday oo waxna oga waay dhaqaatiirta qaxootiga aan u maleynaa inay wax qabanayaan marka waxay dhaheen wax uma qaban karo insha waxaan reer baan dul saar ku ah guri ma qabo kaarna ma qabo kismaayaan ka imaaday marka cunugan waxa uu sii dheer asagii oo aan ooyneynin oo inaan 24 saac kor fadhiyo ma ogi isha uu soo ooyneynin habeenii maalin waan kor fadhiyaa xanuunkan uu ku dhashay buraa ku taalo buraa ku taala marka 20 beri markuu dhalnaa codka xirme madaxiisana uu ka sii darayaa daaweenkiisa ka sii dambayso uu ka sii darayaa marka tawar iyo awoodna ma ahay ilaahay isha subxaana qaadir caafimaad qeyr qab ha siiyo waxaan aad u jeclaanaa cunugan isha in la igu garab istaaga caafimaadkiisa cunugan aad aragtaan waa cunug sanad iyo 5 bilood dhalan uu iga xanuunsan yahay tawar waan u waayay waxaan haysta ma lahan waxaan ka isha ka imaaday Soomaaliya kala imaaday kaar qaxootiga ma soo horreeynin muddo sanad isbitaal baan kula jiray waxna waan u waayay uuna iska dhibaataysan yahay marka aad baan isha u danyarahay marasaarkiisa kale ma heli kari caanihiisa kale mar walba ma heli kari dibkan baaysta walaalaha muslimiinta meel walba joogaan waxaan aad u rabi lahaa in cunugan lagu garab istaago gawar walaashiin ahaan ahay waxa ii sii dheer inaan guri haysanin oo reer aan dul saar ku ahay ee saa aragta balbalaan saaxanaa eeda guri noo eeda hirgal noo ah waxaan muslimiinta meel walba joogaan ka codsanayaa mar walba in cunuga caafimaadkiisa ay u garab istaagaan gurina ii dhisaan boosna ii gadaan iguna soo duceeyo meel walba joogtaan inuu Ilaahay labada caafimaad midkii Ilaahay uu targal inuu Ilaahay ii siiyo. dhanka kalena waxaa isna warbaahinta RTN la hadlay macallin Mukhtaar Soobaan dhaqane oo ah muxsin u dhaqdhaqaaqa dadyoga tabaalaysan ee ku nool xeryaha Dhadhaab wuxuu dhankiisa walaac ka muujiyay xaaladda saqiirkan xanuunsan wuxuuna muxsiniinta Soomaaliyeed ku booriyay inay si wada jir ah u soo tabarucaan saqiirkan xanuunsan sifa loo samata bixiyay buu yiri daawada Allah haye daryeelkiisa caafimaad. walaalayaal halkan waxa ugu imaanay wiil yar oo runtii imtixaan haysto imtixaanan dhibaato haysto dhibaatada waxa fahmi kara oo qofkii dhib soo maray waxa fahmi kara qofka dhibaatada ku dhex jiro ma taqaana haddana wax ka qabashadeeda ay ku adag tahay qofka aqliga leh ayaa fahmi kara qof dhibaataysan qofkii dhibaato ka feeda ajirka uu leeyahay walaalayaal runtii waxaan aragnaa wiil yar oo iska dhibaataysan iska muusii xanuunsan waxba muusan kasbanin waa saqiir laakiin waxa lagu imtixaamay lagu jarrabay waalidiintiisa waxaan Allah tabaaraka wa taala u weydiinaynaa qof kasta oo qalbi leh naxariis leh wax yar qalbigiisa naxariis ku jirto oo hooyadan Soomaaliyeed u soo gurmado u soo naxo iyada naftarkeeda waa gabar yar had markaan u imaan runtii way iska ilmeynayso iska weynaysay murug baa ka muuqatay waxaan rajaynaynaa insha Allah in qof kasta u soo gurmado wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed qof kasta oo gabadha walaasheena oo inaysa ee murugaysan u soo gurmado oo dhibaatadeeda wax ka soo qabto Ilaahay asagana subxaanahu wa ta'ala u soo gurmado Ilaahay dartii aynu u caawino gabadha Ilaahay dartiina aynu ugu soo gurmano Ilaahay dartii gabadhaas aynu isku dayno inaan dhibaatada aan la qaybsano
xanuunka inaan la qaybsanno kurbada inaan la qaybsanno inaan dareensiino inay leedahay gabdho kale oo Soomaaliyeed walaalaheeda wiilal dhalinyaro walaalaheeda dad muslimiin ah oo Soomaali isku jinsiyad isku luqad yihiin oo dhibaatada la wadaagayo inta inaan dareensiino in isku dayno waxaan Ilaahay uga rajaynayaa qof kasta oo ka farxiyo Ilaahay inuu ka farxiyo Bashiir Gaaxnuug RTN xeryaha Dhadhaab